Asxaabta waa idin salaamay dhammaantiin. Halkan wax yar baan doonayaa inaan idinla qaybsado oo anigu waxaa sameeya amba sidaa yeel ku malihi laakiin aduu reflectionkaaga ku samee. Ee, diinta islaamku waa jacayl, waa nabad, waa wax dadkao dhan u wanaagsan. Taas run ma tahay? Dadkeenu ma u isticmaalaan diinta islaamka wanaag dadkao dhan loo isticmaalo? Su-aashaas baan isweydiinaya bal ila daawo fiidiyoon soo socda. Ninkan wuxuu joogaa Soomaaliya wuxuu haystaa 100,000 oo flow ku sameeyo. Ka waran dadka khaniisiinta ah ee agtiisa ku nool aan sharci iyo system iyo family aan wax protection haysan. Aduu bal isku day inaad waqti yar 5 daqiiqo siisid maskaxdaada ka fikirtid haddaad qofkaa noqon lahayd noloshaadu sida ay noqon lahayd. 5 minutes ku isticmaal please. kaba fogba quraanka waa lagu caayay intaasoo aayadood ayaa calashaan kusoo degay oo qoom dhan ayaa lagu halligay qoom luut ayaa lagu halligay marka qoom luutnimo ilaahay ma abuurin ilaahayna ma ogolo waxa la raali ka yahayna ma aha marka taas waxaan ku ridin waxaad ku arkaysaa dad badan ayaad ku arkaysaa oo nabigu yiri oo la yimid calashaan wax qariib ah oo diinta ku habooneen oo dhaqanka wanaagsan ku habooneen ayuu nabiguna wuxuu leeyahay falaysa minna warkuwaanu naga mid ah warkuwaanu naga mid ah baqaniis maxaad ka sugaysaa kuwaas qaniisiin maahan ugu waa wax caadi dambi waxay sameeyaan caadi salaadoo laga tago waa falaysa minna oo diintaada uga baxaysaa ku taalo qoomulud waxaan qoomuluda tuuga dadka dhaca dadka xada dadka dila dumarkii caruurta ku kufsada martida dhibaateeya sidaas qoomulud lagu ragay marka xadiiska nabiga kaleey salaatu salaam ku soo warinayo leeyahay dadka sida qoomuludu dhaqmaha la dilo macnaheedu marka waxay noqonaysaa dadka dhaca dadka waxada dadka khiyaamaha la dilo aan dadka kale dhibaateeya amba dumarka kufsada amba caruurta kufsada macnaheedu taas may noqon kartaa Ilmaha Soomaaliga ee khaniiska ee dhalan doona amba 8 jir 10 jir 20 jir ah ee Soomaaliya jooga mustaqbalkiisu sidan buu maanta u eegyahay bal ila daawo. bal waayahay haddaba inanka yara 7 jirka ah ee 4 nin farax xumeeyeen keebaan u meheriyaa haddaba bal sheega oo annagu haddaan cisbitaallo joogno dee waanu aragnaa qaar isku faruurmay baa la faruuray baanu aragnaa 6 jir iyo 8 jir baanu aragnaa inama yaryaroo la farax xumeeye baanu aragnaa waalid baynu nahay madaxweynuhu waa waalid ubad buu dhalay waalid dhashay saddex nin oo qof bini'aadam iyo bilmo soo raac warda meel ma qaama doon soo raac miskiin kan xashata fiyuusa meel digin gala dadka saaro war fiyuus wax badan ku keentaa badan meel ku saamar arag ada isbalansan wiilku balansadayaba adigu waa ay baas ma ku khasba ma adiga maxaa kugu khasbay inaad balansatid adiga maxaa kugu khasbay inaad balansatid dareenkii kaalintii oragnimada kaalintii Allah ku qubo badanaa wadankan muxuu diglayaa liisaana ka socoto ilaahay inuu dhaarshay saddex nin meesha fadhido مسكينكاسي لو قراعة فيرشا لا إنه درس لا قسمتاس ونما كان صدحنا إنه كل ماشي توجع لي قفك يقدر تنسدوري كاري كل شيء تبتم سوا مسكت تقول سامي فكر لك ما يوا محاكا قلا دويا هي دون إهل أنا محاكا قلا سنكو بالقلين